دارو كلا بحو ها نين دارو كلية هو يا كو داوري عساقه هذا بالعساق كلا غور ادغو ما يدي صورت رجس كعي خبر ما وراد سيده هر نين هورتا نين دارو والله نين دارو كلية ايوه وراد هورتا اسكعي انا waxa ku weydiin farmaajo iyo dan yaa isoo kay aftiis baan ku yiri dan yaa ku soo kay asaga horta qabiil ku raacay daaxi qabiil ku raacay ta horta Allah ku gudu haye tan labaad aan ku dhahay waxaan ku raacay madaxweyne Soomaaliya tan labaad aan ku dhahay ayo mid labaad aan ku dhahay madaxweyne waa diidan tahay madaxweyne waa ogoshahay ra'iisul wasaare waa diidan tahay haye ku daayay mid labaad aan ku dhahay waxay tahay hadda ahlu sunna waxa tii saami qaybsi raadinaya wax la siin kara xaka dhacay ha maanta ka waran niman aad wuxuu ahaa xera oo tuma weyn ay tuma yara oo ahlu sunna magacaada sheegtay garow waa joogan xera dhanbe ku leeyin صح هو وايستان hubna waa haystaan صح ka waran haday biri inta barxadda la soo istaagan xabad ka bilaabaan dhahaan wasiiray xilbaan u baahan ma taageeraysaa isoo mucaarad ما ديسو istaagan haday garow inta caawa istaagan xabad ka dhex bilaabaan oo dhahaan waxa u baahanaa wasiiray xilbaan in la siiyo صح ma taageeraysaa waa run ma dhahaysaa mise waxaad leedahay baadil oo socotaan systemkaas dhisan oo shacabku nabad ku haysa duminina la ما انت مره raadin karaan waxaan leeyahay halla ha kuwa habargidirna waxa leedahay waa saxan yihiin islaaya kuwa habargidir sababta ku leeyahay maanta waxa marti ah oo ila jooga nin marna saaxiibkayga marna afayeenka Puntland Jubbaland gobolka Banaadir horta galmudug ku jira galmudug Hirshabelle iyo koonfur galbeed afkooda inta raani haddaan baranaya marka barato baa dhahay ha ma haddaan baranaya laakiin sidoo kale afayeen baa waa Soomaaliya afayeen soo dhawow aad iyo aad baan ku soo dhaweynayaa yaxaan yaaqub wannan aadna u kala aragti duwanahay haddana dee aan aadna saaxiib nahay oo ku faraxsanahay walow ummadda Soomaalidu inta badan waxaan dhihi karaa war dimuqraadiyadda aniga waxaan nabadayda aniga yaaqub naga barta meeshaan naga baran maaya ha waana wada soconaa waana kala soconaa iyo warka soo daa gobolada afayeenka u ahay niyahow horta inaan ku soo boqdo ku faraxsanahay meeshii galmudug ahay afayeen daa u tahay xaalkeeda marka war horta inaan ku soo boqdo ku faraxsanahay iyadoo waliba xaalad xasaasi jirtana aan ku soo beegmay sax waxa la nin jidiin kala haya baa la jirinta kama qoslo horta nin jidiin kala haya ahayo maxasti caruurta xabad kaga socoto meeshii galmudug xaaladeedan aad bay u xuntaa hadda dagaalka halaga gacan sareeyo waa dawlad wuxuu dawladna dhihi maaye waa tiim farmaajo anu dawlad dhihi maaye dawlad waxa la okeeta ma samayseen horta halkaas waxaa mas-uuliyad darro weyn baa kasoo gaarsa dowladda federaalka iyo dowladda galmudugba yaaqub ha dhibka jiraa wuxuu yahay taqaana systemkii dowladnimada yaa ha iyo la dagaalanka farmaajo ha baar isakii khaldan annaga ahaan ha idinka MBB MBB maxaa la marka MBB waa garanaysa mooryaanta baraha bulshada annaga mooryaa hadda ha inaad mooryaantii waxaan ku cadaynayaa hadda aad isku cadaynaya waxaad isku cadaynaysaa haye nin wadaada haye system hadda galmudug aad afayeen baan u ahay galmudug waa dowlad goboleed Soomaaliya ma dowlad goboleed afayeen tahay misaal sunna aad qaado shacabkan waa aanu dawlad baa afayeen ma shacabka galmudug baan afayeen waa galmudug waa maamul dii ha shacabkeeda iyo dawladda isleedahay shacabka iyo dawladda horta fiirday ayuu hadda anu ma dhaho afayeenka deegaanada ma u taabana afayeenka deegaanada galmudug Puntland oo kale Jubbaland oo kale gobolka Banaadir oo kale marka waxaan ka soo wadaa arinta aan dawladda ku eedanayo qorqor inta qort eedeeg kala xagalay galmudug dagaal ka socda waxa istagaalaya dawladdii ka jirtay systemkii dawladnimada ee la doortay xildhibaanadu doorteen ee loo codeeyay iyo waxa istagaalaya niman yiri isbaaran dhiganayna guracay wuxuu waa family isku diraya way family way saddex nool ma adeer way aan ku waran marka wixii iyadoo wax loo qaybsan karo oo la heshiin karo gacmo galjir fiir su'aal baad ku weydiinaya ayuu qorqor madaxweynaha galmudug ma yahay hadda ka hor dagaal intuu dhuuso mareeb ka dhacay nimanka ma laga saaray haddii nimanka meesha laga saaray ninka waa madaxweyne markii ay soo galayeen oo imaanayeen oo hub urursanay oo ciidan urursanay qoor muuse ku maqneen magaalada xamar hada ma Soomaaliya ma horta soo kuma maqneen say xamar looma dooran galmudug madaxweyne kaya marka waxa ka soo wadaa wuxuu ku mashquulsan xilliga khilaaf
farmaajo iyo roobla ah wax maslaxad kama keenin laakiin haddii uu nimanka waa laga saaray magaalada way ka baxeen dagaal baa dhacay inuu dagaal wiil baa ku dhashay wiil kuma dhinto kadib haddii systemka qoorqoor ee meesha ka jira uu yahay mid dadkan ay deegaanka u naxaya marka hore si kusoo noqon lahaayeen ka taxadari lahaa okay yaa qoligiiso adeeda Puntland ka jeedaa صح Puntland maanta waxaa looga dareerayaa doorasho qofyooda ما شاء الله اوغا ay u fayn iyo qarka socod اوغا meesha maanta ay marayso galmudug waa 20 sano ka hor 20 years ka hor 20 year ma كويل اتصلكم ma 94 meesha ay marin xilliga altaadka la dagaalamay يس دي اف oo anaga qayb kamid ah altaadka waday يس دي اف xilligii bay marayaan nimankaas صح ogow oo kama da'weynin orday systemka dawladnimada loo kala dhashay dadku runta indhaha laga qarsado اورن annaga iyo habar gidir bash digta اورن majority-ga habar gidir baa iskale degta ma may waa miskamaale galmudug waa dad badan oo tira badan qabiilo badan laakiin majority-ga maamulka iyaga maamulka qabiilka meesha u badan habar gidir aye maanta ayaga dhexdooda istagaalay cid kale dagaalamaya da ahaan ma kala weynin laakiin garaad ahaan baan kala weyn 94 meeshaan maraynay bay maanta marayaan subaxan xasan dahad aweys kula dagaalameynay buuraha saliid iyo ilaa iyo afka garow kula dagaalameynay صح oo annaga qayb naga mid ahay oo maanta inta afku loogiyo saraakiila ay hogaaminaysay صح subaxaas meeshii aan maraynay bay horta saaka marayaan صح garaadkaan dheernahay aqalka ma dheerin ma dheerin da'da ma dheerin ما waxaad og tahay maanta doorasho qof iyo coda system ah baan u dilaacnay صح oo maanta waxaan arkayay odaygii saaxiibka hadana qurux madaxweynaha Puntland madaxweyne Sheikh Cabdullaahi Deni albaabada garaacaya dimuqraadiyadda kamid ah albaabada garaacaya codsi siidahay okay su'aal marka akaan xagalay halkaas inuu madaxweynuhu intuu maanta soo baxo shacabka guryaha ku garaaco uu dhaho codkiinaan rabaa adigu ku farxad gelinaysaa saaka absolutely waxay farxad gelinaysaa hanaan dimuqraadiya muuqda bisayl baa muuqda sawir qurux badan muuqda obama garaacay albaabada cod raadinay marka waxaan dhihi karaa anigu orninka haddaan sahayno dee siyaasadda qaybteeda aan isku haynaaye laakiin xagga Puntland marka la yidhaahdo doorashadaas لسعيد بوتلان مالي بوتلان هذا اسكله ها بوتلان marka la yiraahdan ku systemka gudaha marka la yiraahdo صح boqolkiiba boqol rag soo maray rag badan ku dhaama walow siyaasadda dibadda ma garanaysa dibadda markaan leeyahay siyaasadda anaga federal waxba ka wareersan taasna wax kala ma aho xaggaas uu qoor dareynaya kursi halkaas naagtaada raan maqli jiray gabadhayda ku siiyo kuma qanco ma garanaysa taas waa mid ka hadlay laakiin xagga maanta systemka uu marayo Puntland maranayo waa meel aad lagu bogaan karo laakiin baa ku sheegay horta hadda maanta qirtay inuu wax u wado ay tahay meeshii ugu sareysay anigu waa ku amaan anigu nin wax qiraan hay MBB da xaq qirini aan ku dhameeyay halka markaa mid ku darsado aan ku dhameeyay ma halka aan mid ku darsado dani maanta waa qirtay systemka wax ku wada iyo dawladnimada iyo quruxda iyo nidaamka wada waa qirtay hal boontiyo aan ku qiro bal iga dhaxraadi aan farmaajo ku amaani karo wanaaga aanu ka xataa dani mu kaga daydo waa wax fiican waa su'aal fiican bal iga dhaxraadi ma waa su'aal fiican waa qiraya hadda isu hor jawaabta oo siinaya haye horta nin raga wax qira waa ko kama naag baa marka gadaal halka fiican doonaa ka fadhiyo haka hordhici sheekada haka hordhici nabad hadba laga dhigay hortaas waa mid tan labaad weligay allahay hadda maanta hadda markaan salaam calaykum sinay oo aanu xaaladda galmudug oo maanta konton ku dhimatay oo aan ognahay baadilka dawladdii meesha ka jiray systemkii lagu duminayo lagu soo weeraray oo niman al-shabaab oo kale ururdiimeed ay ku soo weerareen aan ku dhamayaan baad waxaad taageeraysaa waxaad sida qoorqoor iyo farmaajo iska agdhow farmaajo ka dambeeyey in la soo weeraro mid aan ku dhamayay mid sii fiirin maysa haddana inaad waxba qirin baan kuu sheegaya ninka ragga inuu warta waxa fiican xashaan la qiro magarasa mid sii fiirin maysa galmudug maanta madaxweynaheedu waa habargidir ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waa habargidir day garaaf milsay ku sheegay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maanta waa habargidir wax baaqa iyo imaatin u yimid iyo xabad hal joojiyo iyo cidana khaldan iyo wax ka qabad yarka aragta
كل ما كوديني انت ايوه جواب ما ها ما كنا بيسنا ها ما نيك الرقم كعرتي وحالات كل حل كل هذه منna ku dhimayo wada warkaaga ما يرتي سؤال ايش ma hadda war ba igu asoo ku jawaab dhamayso هذا ولا اقول لك haye horta dhamayso xilliga cabduul cali gaas baa Puntland waxa gadoodin in loo jeeys maxuudin gacmi baa gadoodin dawladda waxa la yahay wala weeraraya Umar Abdirashiid baa ra'iisul wasaaradda waddanka federaalka ah Umar Abdirashiid Ahmed Madow ta soo kaxaystay markii la yiri maxuudin xogaa ciidan wata iyo ciidankii dawladda madaxda gelinaya inaan wiil dhiman wiil reerkooda aynu soo dhiman bu asagoo dawladda federaalka madaxweyne ka ah bu inta kismaayo toga xubno soo kaxaystay bu garan ku soo deg oo maxuudin gacma yiri ana ku xukumay abiyaalo oo hawsha meesha ku dhamay ra'iisul wasaare beesha ugu jeedina waa Puntland hada ku dhamay maanta adigu ma qari kadib mana dhihi kadib adoo xeerinaya MBB ba islatihiin rooble inuu gabay reerkiisoo maanta iswarjeefay oo maantana konto dhimatay shaayna 38 dhimatay day waa 88 qof baa nafta weydada dhac dhigayso waana isku beel wax dhimanay intuu soo tago xataa hadlo oo yiraahdo ma awood adiguna ma awoodi hadaa ra'iisul wasaaraha iyagu mid ma dhigi kadib farmaajo bay kaaga dhigantay intaas ma waxaan su dhaanaa aniga adigu aan ku dhamay waxaan su dhaanaa anigu dani qurux maalintu wax wanaagsan waxaan leeyahay keep going waan leeyahay maalintu wadiyaa la ku roy dhiqada xisaaga wax leeyahay maando ka dhabax baan leeyahay oo nin maalintu wax wanaagsan qirayaan dhahayo war maanta sida hadda aan kugu qiran dhahayaa maanta maalin aad ka fiican tahay ma arag hore soo adigu laak ma dhigi kadib awar ku dhameeyo haye horta arrinta ra'iisul wasaaraha hadda kaaga jawaab ayuu ilaahu ha iyo ma naga wada yeersin shalay adaa waxaa la ra'iisul wasaaruhu nin qabiil buu noqday maantana adaa waxaa leedahay ra'iisul wasaaruhu muxuu reerkiisa ula kala hadli laayahay hadduu qabiil yahay horta ii kaadi kama dhaxgaleen warkee horta ra'iisul wasaaruhu waa ra'iisul wasaare Soomaaliya weey waxaan u wada jeedno uma Soomaaliyeed dhan u jeedo qorqor wuxuu ku yimi wax sax ahayn nimankan ahlu sunna wal jamaacana dhibka iyo wax meesha ka jira waa niman wadaada ah waxay raadinayaan maamulka waxna laga siiyo xaq bay wuxuu leeyahay in maamulka wax laga siiyo inta sano ay al-shabaab la dirirayeen farmaajo wuxuu ku maqnaa iyo qorqor iyo systemka meesha wax ku maqnaayeen dibadii ku maqnaayeen nimanka meesha jooga maanta xabada waajibka xabada looga dhigayo ayuu horta niyow rag iska celintu waa kula fogaatay shalay ra'iisul wasaaraha adoo ku eedeynay inuu nin qabiil yahay oo farmaajo in adeerkaayo oo nin qarannimo ku taageeri ma soo qaran ka daayo qabiyaad ku taageeriso asaga waxa lahayd adu markaas farmaajo qabiyaad ku taageeriso asaga leedahay wuxuu noqday nin qabiil soo aan bareer habar gadiray qashinkaasi waxa soo dhan aan badhax galinba maanta isla adigu waxa muxuu reerkiisu la kala hadlaaya muxuu la kala hadlaa abeesa meesha fadhida galmudug waxa qasay waa farmaajo iyo Fahad Yaasiin weeye nimankan culimada ana iyadoo aan marka hore xabad lagu ridin ba arinkooda waan lagu dhameyn karay waliya inaga day reer Puntland beenahay iikaad 12 sano ka hor ba saas kale inagu kursi iyo system iyo nidaam isku haysanaa ban xabad isla yani 12 sano ka hor shir weyn aan suunin magaalada Boosaaso intaanu arinteena dhamaysanay oo wixii dhacay falaxalay ka noqonay intaanu iska dilnay iskama dilin galmudug ma la socota horta anagu inta iska dilnay xilligaas iskama dilin waa wada arinteena waa dhamaysan marka ayuu waxaan ku sheegay ma taqaana dadka hadii lagu dhex jiro walaalaha ma heshiin karaan galmudug waa dhismi lahayd waa qurux badnaa lahayd waa maamul saddex reerood ilma adeer oo habar gidaar waxba kuma heshiin waayeen laakiin waxa qasaya waa farmaajo iyo dawladda federaalka ka baxa inna madaxweyne ka horeeyay qorqor oo waxaad ii sheegtaa galmudug gudaheeda dagaal ku galay xaafaan dagaal galin oo nabadoon aha oo joogeen ra'iisul wasaare xataa si soo qancinaya qof ilaa ma qancin kara laakiin xabad xal ma ka baxdo waa ka baxay laba qodob waxa ka oranaya haye kalada farmaajo qabiil ku taageerin ka oranaya idba ka oranaya haye aniga dani taas jirna marka farmaajo loo eego haye dani laba ma daraatay maxamed salaam asku jirtaa farmaajo xagee jooga farmaajo xagee jooga farmaajo waan daarad kula magaca daarad uu jooga ma waan daarad kula adeey wana isoo magaca كيسو كيا سأنا كودي كيسو كيا لا والله كوسو كيا ولا لا وي ما يا خيالي اسكده دبا انت كل جيسنا يا عوان ما هي سيدي وقت نسينك ورما واحد جود مسا واحد قارني ورسيدي نك يا قرنص ورسيدي نك كولا قرنص دارود ما كلا بخين نكون nin daarood kuleeyahay
daarood kala baxo ها نين دارود كلية هو يا لا كنت داوري عساقة أظن عساقة لا قرا أقول ما يعني صورت رجس كعي خبر ما وراد سيدا نين هرت نين دارود والله نين دارود كلية أيوه وراد هرت كعي أنا وحكوا ويدين فرمات شيء الدنيا يا إيسو كي أفتيس ما كل الدنيا كوسو كي أسمع تقبل كل عادة تقبل كل عادة تارت الله كودو هي تلا بعض كل ما كل ما حنوصل ما إيه كان تلا بعض كل هايو أيوه مد الله بعض كل ولا مدحوني ودي أنت مدحوني وقشة رزوارين ودي أنت أيوه هي كوداي مد الله بعض كل هايو وحيته هي هذا أهل السنة وحتي سامي قيب سيرانية وحلا لسين كده حاجة لعب ها ما أنت كورن نوان حرة وتموينه أو تميرة وأهل السنة ما على شيء تاعي قالوا وجهه حرة دم بيقولي صح هو وايستان هو نوايست صح كورن هذا بري أنت برحد اللي سوي استاجر حبتك بالعبا لحان وسيري اللي بأنا وبهن متاجر ليسه يسمى عرض ما ديسو استاجر هذا يقولوا أنت عاوح استاجر حبتك تحت بالعبان ولحان وحاو بهن وسيري اللي بأنا راسيو صح متاجر ليسه وعارفون من رايسه بيسوي حل راي بعد لو سقطان السيستم كاس للسنة والشعب كنا وضعوا كايس الدنيا لا ما أنت مرة ذيك كلام وحن لي هلا الله هلا يلا ها كوه هبر كده وحال لا وسحين إسرائيل كوه هبر كده صوتك كله ما تقعنا نمان كان مركي قلب يقول لي سيء أرد في سوفو قلب يقول مركي لسه واحد من كل مسكوا ملاحين إلى أي ذلك اللي يقدم بشيء ده كل شيء هرت نمان كان ده واحد من كل عين مسكوا ملاحين مدة ذيك المتكلة مدة ذيك المتكلة سبحان الله أهل السنة والجماعة عادي ولا الأردنيين يدورون هذا هرت نماكم الدولة بعد أنا تعادوا والسؤال من كل شيء ديني دولة كلام ما يا أردنيين ها الشعب أردنيين ولا وجه عدو نمان كان من الدولة بعد ربطها قلم تقول ربطها مسوحة على ربطها مال أردنيين كتريو أنا وحنا للربع نمان كان إن تليار ما نمان كان السيستم كي ترى وحلا قصيو صوبت الشري ديان كدفاعيين أوكي oo dadka difaacay markaan ku leeyahay kuwan garow wax badal la dhex istaagaya hal lagu rido markaan ku leeyahay ma jirto meel aniga xer igu difaacday timo weyn igu difaacday okay su'aal laakiin markaan noo soo shaqeeyay weeyay okay bulutka anana soo midaan ku sheegay waxay tahay systemka dawladnimadu hadda adigu waxa tahay kaba soo qaad madaxweynaha كم سؤال خارج هذا نقول نقضي هي أما سيستم دولة أباك هذا أما سيستم ما حاجة الصوانيس دولة ما يح سايلوك سينيا هي ده قاديس هي قاتل أنا جو الأكتها عن إسكو خيّة هين معارض كلا كا ها ما كلاش شقين كراي في سير سامي كراي يسوي سير كراي يسوي ما هي كلا إسدلين غاب كعلى غور ونمين كوسو دوري وسير رصيح اللي وانسي وبلوتها على الناس به بلوتها على الناس به نيو بدأ جرتها وزير سوق مدحوين مقعاوي معها برنا عيرين كرو إنه بالشدة وشقية أرت سياسة مركز نقطة واحد وجامية حكومة مدحوينها وصرية إيه لسه كل اللي جواي ما دد كي ديجان كوشقينية مركز عدو هذا عدو مدحوينه أنت قول سوقات وأن حبتنا حصار لو يصير برا أو ترى هو ما تشري كان قال توصل يا إن هذا كانوا نيعان تاجا بس نقول بقعدانية دوال كيو دول النمذو مسافة كرتين وانك ولا مرة بين وانك السيستم كلها خلطان ما أنت واقع سوسو ما أنت بتلا واقع أنا هي بنتلان سيستم باكتشرة وكوبه واحد لقمة يسيرة واحد لقمة زي ما تدلي يا قبيل هذا كم سؤال سيدا مع شخصيات ما قبيل لا تدل ما أنت وحضرتك على بين سيستم كتيرة إنك أنت الوصل لقمة يسين أرنتها هلا يودع تدي إيه هلا يودع تدي هي قرنسا هلا يودع تدي ورك عملت كوسو أقول ما مركا دولة النمدو ما أها وحقف الوقر إن كلامه نبض بدي أقول شيء ولا أنا فاهم أقول ما قور ماشي أتكلم هذا هاي ديك إلا ده سماها ها ما إنجليزي أو حيل هذا أنا هذا إنجليزي كاو كلام ما هي كاو كلام ما إنجليزي ما إنجليزي أو حيل هذا نبض ديك كده ميسا هي نبض ديك بدن داعي كده ميسا هي كلاشة ده هي إنه ديك داعيه هي الشباب إسكحريه إنه كان شوف صفدا الشباب كلا إسكحريه هي سداسة الدولة النماذج قلبه دوجاري كذا سيستم دولة النماذج عنده كل كذا كان هالقاعد كذا وحي مريان ماشي 94 يبطل المريس ما مريان ماشي أي 92 مياه هي أي إستعمار ييرو حرارة إسكو هيستي
ولا عاو ميد يقر فيديو رئيس الوزراء وروبل وادي ومساوي وعلى مداس يدري الوزراء قرنك عاو ميد ما رجل مدوغنا فيديو وداون دونان haddii aysan bulshada galmudug isku tanaasulin horta dhibka weligood ku jiraya waa kow galmudug marjac loo noqday salahayn isimo iyo wax dadka hadda fiiri daniya caawa haday gudoomiyaha baarlamaanka sidaan yaa kala dhahaya haday sabtan masha asaasyaasha joog isimada waxa la leeyahay waa daranta waxay u baahan tahay galmudug ma leh intaas dhibka jir marka waa intaa way markii ilaa ay helaan marjac ay u noqdaan oo dadkan iyo deegaanka dusha ka ilaaliya galmudug anaa ku dhahayo ma hagaagayso hadda madaxweynaha Hirshabelle tusaale ahaan soo beledweyne loo diiday miyaa xabad la aaday halka awood oo sameeyay laakiin loo diiday soo kulata ma baa imaan kartid baadiyay hadda soo kulata yaa dhahaya beel waxa dhahaya reerka waliba reerka dhahaya mararka ayaawo ordo mar waxaan dhahay mar waxaan salaamta mar baa Allah qaar waxaan dhahay ama lagu fahmaa inaad qabiil ka hadlayso kale ما توارتا وحكي شيء قلمدو Hirshabelle waa aragta صح reer baa waxay leeyihiin hadii aan anagu ana madaxweyne noqon madaxweyne noo imaanayo ay halka ay xamar waa hadalkan ku qurxinay hadalkan ku qurxinay hawiye male marje iyo wax kale haga adu waa ujeedaa adu ummadii kale ma loola kan Soomaaliga cagaha ku dhaweeyo la haray ilaa ayaga la sugayay meel Soomaalida ka dhan ayaga sugaysa waagay soo kacaan in la israacal sugayay ma loola kan ay fiirday hadda Hirshabelle mid baa la digtaa afayada waa ahay awiya afayaga oo sheegtay bushe ma yidin ma horta mid jirta xamaan ma yee ada afayaga horta mid jirta anu hawiye waxaan ku qalday waa sheega moogta wixii ka qaldane hadda Hirshabelle hawiya wixii majority galmudugna hawiya majority ka gobolka banaadir ayaa majority ka shalay iyaga ciidid shalay iyaga gacantooda ciidid isaga dilay hawiye maanta saa gudihiisa qorays ku wata annaga midda kaliya ee Soomaaliya u baahan tahay waxa hadii odayga xaad miyaa odayga hawiye sheeg nabadon xaad ayaan khayr odayga saaxiib u ahayn ma ayaan ma iika yaa fadi siyaasadda aan ka dama horta waxaan ka hadlay horta hadalka igu celin adigu ninka hadlay ma tihid ayib ninka hadlay ma tihid anigu waxaan dugmintir duumaya weeye waxaan ka soo wadaa ma horta waxaan ka soo wadaa mataqaana soo nabadoon ma xaaf soo ninka dhamaa xaad ninka dhamaa reerka looga dacwoonay maaha anigu dawladda federaalka ma dhaliya farmaajo ma diida ma ka raaca mucaarado dhan ma raaca siyaasi kasto mucaarado hawiye ma raaca laakiin mid baan diida anigu nabadoon hawiye intuu meel soo istaago ariya aabaxe inuu dhaho ama ku baaqo dagaal ku baaqo weliga nabadoon Puntland ama Jubaland TV taagaro u dhaaranay ma artid amid ku weydiiyay laakiin maanta haday hadlaan oo taageerada oo taageerada marka dhigi jireen farmaajo kursiga ka deg hawiye waarintii ma dhigi jireen guuleystan dhaawad hadda waxaan ka hadlayaa waxa weeye in reer ku yeeshaan meel loo noqdo markii farmaajo la dilay aad runtood markay kalena waa beento ka adlay hawiye de ka dilay Soomaaliya hagaagleed iyagana ana u jecelahay waxaan dhigaa hawiye dacada qabtaan guuleysta yaqo gabagabadii horta farmaajo waa madaxweyne waddankan madaxweyne la soo maray madaxweynihii hore weey hadda ma madaxweyne waddanka soo maray waa madaxweynihii hore sax madaxweyne hore haduu yahay adigu khasbila Soomaaliya ka soo bixiyo day inta nagadiisa habaarka naga daayo wuu nool yahay meesha waa dhex fadhiyaa foodu ku jooga hadda inay soo horta ninka waa madaxweyne hore waa madaxweyne Soomaaliya weey haye madaxweyneyaal waa joogay hore soo maray sax siyaasadda saqay sax laakiin ku fogaanshaha ma garanaysa ya aad leedahay ka hadii caawil dil lahaay waxa iyo habaas kula gaay hasha farmaajo qofku markii mucaaradku limid bulay farmaajo u maray maanta maalin oo adiga shakhsiyan ugu dhaweeyay la taariikh waxa dara hada meerda ku daay ka warab ما يمرد مرتي أقول تعال كم معكين لكن وين كسي ما هو أنا قصي وين كسي ما هو معارك أو اللي متها خالو
نك السياسة هذا ندي وسينا war hadda ma fiiri day معارض ما كان شخصيا أيوب هالمعارض صح حدنا ما أنت جيري سمعت على اسمك حاشا وجه نورت لا وحده ما إله وحده لكن ما ينبع جيري سؤال بعيد مقايسة أو الأمر يجوي قرنسا صح جيري كده ما أنت أوح الله يروح بعيد مقايسة لكن السياسة كل عارف تدون لكن ما أنت دمشق وحلا مضايق hadda ninku sharcigiina dabada gashay madaxtooyada ka soo أنا madaxtooy taa ka hadlay waxaan ku yiri limit hala haato mucaarad ma limit ma waxa limit u yeelanay isaan waxa limit lahayn 8 bilood bila sharci meesha ku fadhiya xashigna kama fiicna sheekh shariifna kama fiicna asan tag fadhiis bila sharci 6 bilood waa isla ogolaa sheekh shariif fadhi ma sheekh shariif isagu waa sanad waxeed ku meel gaar laga saaray baasho وهذا اللي بفرق ماشي واسلو اقول بيت كيا يا كان اللي يحيي بفرق ما حكرتها يا اقول يا اقول بقى انا اقول انا بني ادم هاي انا يجي بدي تو بني ادم صومالي معي مو هذا نوع بعيد انت يا اقول معي ولي اكو فرق ما يكون فرقنا يا ام بي بي وانا عاسمي aad baa idin salaamayaa ninkaana waa saaxiibkay maxamed yacquub oo soo booqday de kabtanka iyo siyaasadda aad baan u kala aragti duwannahay laakiin sidii kala saaxiiboonna yacquub oo kusoo dhaweynaya saaxiib waa dhawaad ma santaa